شريف waxaas tirada badan ee meesha dhooban aad arkaysaan waa sixir weeyaan ma aruursado ilaa qof saaxira mooyaane waxaas aan kala furfurnay oo dhan waxaa ku qoran asmaa sixir baa ku qoran iyo shayaadiin magacyadooda lagu dhex lifaaqay ilaahay magaciisa waliba qaar magacyada iyo qur-aanka waxaa loo qoray dibdib baa loo qoray si gadaal gadaala ayay u qoran yihiin qur-aanka waxaa loo qoray gadaal gadaal ayaa loo qoray qur-aanka waxaasoo dhan waa sixirro weeyaan meesha ku dhooban ama qofkii loo soo sameeyey baa lagu sixranayay ama dee qofkaas isagaa wax sixrayay wax ka dhexeeya ma jiraan marka waxaasoo dhan waa sixir weeya ilaahay dad ka soo furay subxaanahu wa tacaala waxa waa magacyo jinni weeyaan marka dadka waxaanu kaga degaynaa muslimiinta ay ku soo qabani dadka islaamka waxaan kaga degaynaa inay iska waantoobaan waxyaabaha ay ka daba wareegayaan oo ah waxaas aad arkaysaan ee lagu sheegayo in qofka ku caafimaadayo laba arrimoodba waa lagu soo qoraa ama waa magac ilaahay baa lagu qoraayo oo qofka maaragtay iyo diin baa lagu sheegay in lagu soo qoray ama waa sixir weeyaan marka boqolkiiba boqol waxaan walaalayaal aad arkaysaan dad un baa loo sameeyey loogu talagalay ama in hantidooda lagu dhaco ama in noloshooda lagula wareego ama in lagu bedilaba marka ilaahay baana ka furay subxaanahu wa tacaala qofkii gurigiisa laga soo helay qur-aanka ilaahay baan ku akrinay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintii u horraysaba ilahay waa ka furay maantana shaqadiisii ayuu qabsanayaa maalintaan u tagayana dadka ugu xanuun badan oo ugu litu ka mid ahaa marka ilaahay baa kashifay waxaan leenahay cid walboo sixir samaynaysaa rabbiga ku abuuray kaga baq oo ilaahay ka xisho waxaana saasay u fashilmayaan waxaan rabaa farriinta inaan u diro ninka sixirka sameeya ee dadka sixiraya ilaahay kaga xisho oo ilaahay kaga baq annagu waxaanu haysannaa aaladdaas cid loodin kartaa aanay jirin kalaamu rabbulcaalamiin waqul jaa'a alxaqu wasahaqa albaatil waxaan aad samaysay waxaa dusha ka fuulay ilaahay hadalkiisaa ilaahay ku daboolay kaasaan ilaahay ku soo saaray ha iloobin ninka yahuudiga saaxirka iyo midka kiristaanka iyo majuuska iyo munaafiqiinta iyo mushrikiinta inuu kitaabka ilaahay weli yaallo dadkuna ay qur-aanka ilaahay ku dawoobayaan marka ilaahay baa furfuray jalla jalaaluhu waxaasoo dhanna nin islaamaa loo sameeyo loogu talagalay in shaqadiisa iyo noloshiisa iyo hantidiisaba lagu baabi'iyo isagaana soo saaray ilaahay baana uga xamdinaynaa waxaanu qabansiin doonaa dab ilaahay hadduu yidhaahdo insha allah ya hal qof baa laga soo saaray ha